السلام عليكم كسر دو امتحانهني عالمka akhriska qaybtii afraad. xilliyada ciidu soo dhawaato waxa ganacsadayaasha ka baayac mushtari agabyada carruurta ku ciyaaraan halhays u ah yaa ubad dhalay misana jecel isagoo ganacsadahaasi raba inuu soo jiito dadka waalidka ah si ay carruurtooda ugu iibiyaan alaabadaas. Innaguna waxaanu iminka leenahay yaa ubad dhalay misana akhriska jecel waayahay. Ilmaha yari marba marka uu sii weynaado waxa bata dhaqdhaqaaqiisa bannaanka ayuu u baxaa oo ororodii ciyaar ayuu bilaabaa oo deegaankiisa ayuu la falgalaa waana caadadii oo ceebtii maaha. Haddii aad buug iyo akhris ku balaysintid oo aad ku ababisid waxa uu buuggaasi noqon doonaa silsilad aan xorriyadda ka qaadin ilmahaas. Marka aad isugu timaadaan miis aydnan cunto ku wada cunayn oo aanu cunto ugu soo diyaargaroobin balse aad caqligiisa ku dhisaysid oo aad ku korinaysid waxna aad isweydaarsanaysaan waxa soo dhowaanaya xidhiidhkiina. Mid kale oo ka tirsan mudnaanaha akhrisku u leeyahay carruurta raadbaradka ah iyo kuwa aan weli dugsiga gelin waa in akhriska badani ilmaha ku tababaro inuu hadhow marka uu tacliinta bilaabo uu gaadho heer wanaagsan oo waxbarashadii iyo sii kororsashadeedina sii jeclaysto. Carruurtu markii ay yaryar yihiin haddii aad sheeko uga sheekayso xilliga hurdada waxaa laga yaabaa inay u arkaan wax lagu luloodo oo lagu seexdo dabadeed ay xidhiidh ka dhexaysiiyaan maqalka ay sheeko maqlaan iyo lulada. Si taas looga baaqsado oo ubadka loo baro in ay basristaan siiba waqtiga oo ay nidaamsadaan waxa ay haystaan waa in akhriska la baraa weliba xidhiidh looga dhexaysiiya asluubta nololeed ee hagaajinta waqtigu ka mid yahay iyo wax akhriska. Waxaa habkaa ku soo baxaya wiil amba gabadh laylisan oo tababaro haysta sida loo ilaashado loona isticmaalo loona basristo muhiimadda waxaad haysatid. 6 gooy oo horeeya nolosha ilmuhu waa inta uu waxa uu qabtaa ay awood u leeyihiin in ay go'aan ka gaadhaan habaynta rabitaanka ilmaha dhanka uu badan doono iyo wadada uu raaci doono. Ilmaha lagu soo koriyo amba lagu soo ababiyo wax akhrisku waxa uu leeyahay fursado badan oo loo badin karo inuu yahay mid mustaqbalka noqon doona hal abuure maankiisa adeegsada. Buugta marka uu saaxiib la noqdana baadhida iyo hubsashada ayaa uu hub ka dhiganaya oo isticmaalaya isaga oo yar. Ilmaha buugga iyo la qabsigiisu waxa uu furayaa albaabo waaweyn oo ruux ahaan iyo caqli ahaanba uu ku kororsado noloshiisana balwad ka mid ah akhrisku ayuu noqonayaa dabadeedna waxtarka akhriska uu leeyahay ayuu la qabsanayaa.